waa kuma jaraatiibiyaha dumarka Soomaalida fagaaraha kalnikiya sidoo kale dumarka Soomaalida kaliya fagaaraha kalnikiya mise dumarka caalamka kala sameyn yihiin 24 saacan ka soo galin waxa baraha bulshada aad u hadalhaynin inta badan Turkiga sidoo kale Turkiga degan sidoo kale inta badan la jaasa dumarka sida daraadeed maanta waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena loo yaqaan hadalhaynta baraha bulshada ninkan inta badan fagaaraha dumarka kala jaasa kuma sii jirto maalmihii ugu dambeeyayna gabdhaha Soomaalida ayuu baraha bulshada inta badan ku soo faafinayay inta badan Soomaalida ay inta badan kaga carootay ninkan inta badan waxay dhahayeen maxabad jalaata kaliya sharafkeena u dhaawacaysa ama diinteena ugu gofaysa maadaama inta badan gabdhahan muuqaalada laga soo qabto baraha bulshada lagu soo faafinay haddaba ninkan ayaan maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa sidoo kale ma ogtii ninkan intuusan barnaamijkeena baraha bulshada akoonada ku leeyahay Facebook ama noqoto TikTok intuusan soo dhigin qofka ayo idin weydiista ma ka raali tahay in muuqaalada baraha bulshada ku faafiyo haddii qofka ha dhaana baraha bulshada ay soo gala inta badan live-ka Facebook oo soo galana waan ku aragnaa gabadhii ugu dambeysay hadda muuqaalkan aad daawanaysiin gabadha intaan muuqaalkeeda baraha bulshada la soo dhigin ninkan ay codsi ka weydiiyay gabadhaas wuxuu ku yiri muuqaalkan ka duubay waxaan soo dhigi doonaa baraha bulshada raali ma ka tahay sidoo kale nacam ay tiri raali waan kana ahay amishkeena hadalhaynta baraha bulshada waxa kaga bagan doontiin taariikhda ku saabsan ninkan inta badan loo yaqaan Sirjan sida daraadeed xogihiisa aan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa sidoo kale inta badan ninkan xogihiisa ayaad kaga bagan doontaan barnaamijkan ninkan inta badan baraha bulshada wuxuu ka soo galaa magacaan loo yaqaan Sirjan sidoo kale waa 40 jir kaasoo degan dhankaasi Turkiga magaciisa rasmiga waxa loo yaqaan Mahmed dalashadiisana waa Turki waa heesa dhaliya iyo ganacsade wuxuuna xarun ku iibiyo jalaato ku leeyahay magaalada dalxiiska caan ku ah magaalada loo yaqaan Antalya oo ku taal gudaha dalka Turkiga sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan qofka ciyaarkiisa dansigiisa ayuu inta badan dalxiisayaasha ku soo jiita ninkan loo yaqaan Sirjan ay caan ku ah heesaha inta badan saaxiibada qiimaha badan heesaha Carabiga sidoo kale heesaha Turkiga ayuu inta badan dadka kaga jaasaya sidoo kale ninkan baraha bulshadana in ka badan 7 milyan oo followers ayuu ku leeyahay haday noqoto TikTok ama haday noqoto sidoo kale Facebookana loo magali karo xitaa ninkan saaxiibada qiimaha badan ku dhawaad 2 milyan oo subscribe ayuu ku leeyahay barta loo yaqaan YouTube-ka kan janatoolaha saaxiibada qiimaha badan igu soo orod ma ahan inta badan warbaahinta Turkiga ayaa soo wariyay ninkan xaruntiisa jalaatada kaliya halkii toddobaad in ka badan $100,000 ayuu ka sameeyay saaxiibada qiimaha badan taasoo ka ninkan dakhli fara badan oo ka soo gal iibinta jalaatada kale ninkan iibinta jalaatada kuma helin daawadayaasha qiimaha badan ninkan dadka inta badan wuxuu ka soo jiitaa qofka ciyaarkiisa heesaha asiga u gaarka sidoo kale jaaskiisana inta badan dadka way jecleystaan barihiisa bulshada waxa ku xiran malaayiin dad oo kala jooga dunida wuxuuna ku wargeliyaa qof walba oo doorto inuu ku ciyaaro heestiisa inuu ku baahinayo barihiisa bulshada xaruntiisa waxa booqdo dadka caanka sidoo kale saaxiibada qiimaha badan dadka dalxiisayaashana xaruntiisa way booqdaan ma jirto wax u gaar ah gabdhaha Soomaalida qof walba oo halkaan raba inuu ka iibso jalaato ayaa ciyaaro waa hadii uu qofka raali ka yahay isagana ma jiro qof uu ku qasbi karo inuu ciyaaro sida daraadeed ogaada gabdhaha Soomaalida ciyaar aad aragteen ma jirto gabar lagu qasbi in ay jaaso sida daraadeed qof walba iyo dooqiis waa sida daraadeed waxa rajayn doona dadka inta badan cadafada iyo lablakaca inay ka daayaan gabdhaha maadaama gabdhaha inta badan ayaga ay doortaan ma jirto gabar lagu qasbo inay ciyaarto